wasiirka koobaad ee dalka mudane xasan cali kheyre ayaa kulan gaar ah xafiiskiisa kula qaatay guddiga gurmadka fatahaadaha ee uu shalay uu magacaabay. guddiga ayaa ra'iisul wasaare kheyre warbixin ka siiyey howlihii u qabsoomay tan iyo markii la magacaabay, waxa ayna caddeeyeen in xalay kulan ay ku yeesheen magaalada muqdisho ay samaysteen xeerarkii ay ku shaqeyn lahaayeen, maantana beledweyne ay gaarsiiyeen 2 diyaaradood oo gargaar degdeg ah waday. ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa intii kulanka uu socday waxa uu guddiga faray in ay laba jibaaraan dadaalada loogu gurmanayo dadka ay saameeyeen fatahaadaha webiga Shabeelle iyo roobabkii daadadka watay ee ka da'ay guud ahaan gobolada dalka Soomaaliya. markii uu soo gabagaboobay kulanka guddiga ra'iisul wasaare Kheyre waxa warbaahinta la hadlay wasiirka wasaaradda gargaarka degdega ah iyo maareynta xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya wasiir Xamza, isagoona sheegay waxyaabihii ay ka wada hadleen guddiga ra'iisul wasaare Kheyre. ra'iisul wasaare xasan cali kheyre shalay wuxuu magacaabay guddi fatahaada oo ka kooban 9 wasaaradood. xalay waxaan ku shirnay Hotel Paradise 8 wasaaradood shireen, hal wasaarad ayaa wiil naga maqan. waxaan isku sheegnay xalaysaan u shaqeyn lahayn coordination ka sameeyna iyo waxyaabaha aan qaban lahayn iyo warbixin guud aan ka siinay xaaladaha ee wadanka ka jiro dhinaca gobolka Hiiraan, Gedo iyo Bay. saakaan isku soo noqonay aniga iyo guddiga halkaan waxaan la kulannay ra'iisul wasaaraha saan u siinay warbixinta waxaan qabanay. alxamdulillah waxaan ku guuleysanay shalay in 24 hours inaan u dirno gobolka Hiiraan 2 diyaaradood iyo diyaarad kale aan ku darnay maxalliga guddigii oo meesha ka shaqeyn lahaa dadkii. waxaan isku soo qaadanay qodob dhowr ah in dadkii la geliyo in la badiyo gargaarka si degdeg ah loo gaaro. hay-adihi samafalka meesha ka shaqeynaya ayagana howl bay bilaabeen maanta. marka waxaan ka codsanaynaa shacabka meel kasta ay joogaan inay u soo gurmadaan. arrintan waa arrin Soomaaliyeed waana muhiim ah. guddigan oo ka kooban dhowr wasiir oo ka tirsan xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa haatan wada dadaalo degdeg loogu gurmanayo guud ahaan dadkii ay saameynta adag ay ku yeesheen fatahaadda webiga Shabeelle iyo roobabkii ka da'ay guud ahaan gobolada dalka. Yuusuf Maxamed Axmed, Galmudug TV, Muqdisho.